السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي هل سو دوادا كسو دوادا كوبعية كريبتو فورم حسنا في دونا برنامج كيني ديلي ابديت وراركي ودن بي سوقا كريبتو كارنسي لعاقة سوق وجرتا واسدح لبيع تدبات تريليان أفر إلى تنكير ساعة سودا في سوق وحاسوغا شي بقول يكونتن بليون أو دولار دافي نعا إيا بريسك بي تي سي هاي أرديسا بقول إيشان كون يأفر بقول دولار إثيريوم صدح كون بقول سغاشن إيكو دولار RB $3 iyo 12 senti Solana $241 hadaan fiirino Fear and Greed-ka wuxuu marayaa 70 ayuu marayaa shalna wuxuu ahaa 72 last week wuxuu ku xirmay 75 last month wuxuu ku xirmay 64 haddaan fiirino suuqa cryptocurrency-ga aad iyo aad ayuu usoo laabtay suuqa maadaama xalay newsyo waaweyn lasii daayay qaybta gadaale ayaa newsyada ku falaqeyn doonaa sidoo kale haddaan fiirino dhinaca iyo stock marketka sida ujeedaan stock marketka waa red oo asaga dhan daadashada ayaa ku badan haddaan fiirino crypto bubblisk yani suuqa sida ujeedaan waa laga qadeeyey asxaabta traderska iyo investorska intaba way qadeeyeen oo investorskii DCA-ga soo sameeyey ayaan dhihi karnaa way qadeeyeen laakiin tiimka cabsaday howl baa u taalla markan aan xasuusiye suuq ayaa laga baqin traders yani investors data labadaba yani ha ka baqin suuqa ka baqin suuqa fursado weyn ayuu bixinayaa haddaan fiirno dayliga sida ujeedaan koynanka inta badan aad u kacsan yihiin balse waxaad ogaataa sanadkan fursadda karabtada inay aad u sareyso taas meel ku qoro newsada haddaan isla fiirino maanta newsyo waaweyn ayaa jira oo maraykanka yuruba kasoo baxaya balse isla fiirino newsyadii xalay soo baxay sida ujeedaan newsyada waxa u waaweynaa waa crude oil inventorieska FOMC statement federal interest rate decision FOMC press conference afartan news ayaa u waaweynaa waxa uu sii muhiimsanaa waa federal interest rate decisionka oo wuxuu ku soo baxay tiradii la filayay oo ah 4.5 ayuu ku soo baxay oo wax yani maaragtay jaritaan ah ama maaragtay kordhina lama sameynin oo bartiisii ayaa lagu hayaa interest rate-ka ninka odaga ahaa Jerome Powell aad u hadlay su-aalo badan waa la weydiiyey waxyaaba badan buu ka hadlay wariyaasha su-aalo badan weydiiyeen sidoo kale wuxuu caddeeyey in sicir bararku oo maaragtay isheeg hooseeyo oo sicir barar badan hadda jirin sidoo kale su-aalo ayaa laga weydiiyey hanjabaadii Trump sidoo kale wuxuu ku jawaabay in isagu wax siyaasada uusan shaqo ku lahayn oo keliya ku go-aan qaadan doono xaaladda dhabta ah ee dhaqaaluhu ku sugan yahay sidoo kale Trump wuxuu aad iyo aad u adkeysanayay inaysan muhiim ahayn in la gaaro 2 dhibcood yani sicir bararka la gaarsiiyo balse odaga Jerome Powell weligiis ayuu dhihi jiray ilaa iyo 2 waa inuu tagaa sicir bararka u dhihi jiray marka hadda odaga 4 iyo meelahaas ka hadlaa soo dabcay marka mar walba yani maaragtay madaxweynaha meesha yimaada waxyaabaha uu riixayo maaragtay ayaa inta badan socda inkastoo Jerome Powell iyo tiimkiisu aysan siyaasadda shaqo ku lahayn marka asxaabta suuqa si guud aad u dhaaqay aan ka faa'iideysano dhaqan weyn haddaad tahay trader swing trader haddaad tahay aad iyo aad ayuu suuqa fursado weyn u bixinayaa ka faa'iideyso